halkan oo ah garoonka dhalinta ee magaalada Hargeysa waxa kaalmo hilib loogu qaybinayaa dadka barakacayaasha ee magaalada Hargeysa iyo waliba dadka danyarta ah. Hay'adda Islamic Relief ayaa maalintii labaad halkan hilibka loogu talagalay dadka inay ku odxeystaan munaasabadda farxadda Eid awgeed halkan maalintii labaad ugu qaybinaysa. ugu horeyntii halka waxa ka warbixiyay kaalmadan hilibka Maxamed Cawil oo ah wakiilka Somaliland ee hay'adda Islamic Relief. waxaanu ka warramay in sanad kasta sidoo kale ay meelo badan oo Somaliland ka mid ah ay ka qaybiyaan hilibka odxiyada. كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. ما أنت ومعلنا هذا طبعا كبشة تضبط لبكون يلبي لباتن أو وافقسن كوي طبعا كدول حجة كون أفر بقول يصدق هي أفر تنكا. ما أنت ومعلنتي لبعض عيد الأضحى وعنكو سجنا هاي جرونكا دالنت مقالة هرجيسة هاي إسلامك ريليف iyo hay'adda barakacayaasha qaxoontiga qaranka oo fulinaya barnaamijkii qurbaani ama barnaamijkii udxiyada gowraca xoolaha qaybinta hilibka dadka masaakiinta iyo danyarka kaamamka barakacayaasha magaalada Hargeysa iyo Boorame guud ahaan sanadkan hay'adda Islamic Relief waxay wax u qaybinaysaa munaasabadda Eid al-Adha daraadeed tira qoysas oo gaaraysa 6268 qoys dhammaan dadkaasi waxay ka kooban yihiin dadka jilicda san iyo danyarta reer Somaliland ee ku dhaqan meelo kala duwan sida kaamamka barakacayaasha Malowle State House-ka labada ayaxwan iyo ayaxtu magaalada Boorame saasoo kale qoysaska agoomaha ah iyo dadkeena kale danyarta dadka naafada sidoo kale dhammaan waxa ku jira dadka aan si ay ula farxaan dadka danyartii munaasabadda Eid al-Adha daraadeed in dhammaan muslimiintu ay isla ciidaan si isku mid ah. qaar ka mid ah hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ayaa iyaguna hay'adda Islamic Relief uga mahad celiyay kaalmadan hilibka ee ay sanad walba sidan oo kale ugu qaybiso dadka danyarta ah. waxaan maanta lagu soo gabagabeyn doonaa garoonka dhalinta ama 31 May ee Jigjiga yar waxaan ku soo gabagabeyn doonaa mashruucii hilib qaybinta ee ay wadday hay'adda Islamic Relief iyo hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka. waan uga mahadnaqaynaa hay'adda Islamic Relief mar walba garab istaaga ay la garab taagan tahay dadka barakacayaasha danyarta ah. annaguna waanu jecel dadka barakacayaasha ah inaanu mar walba wax yar iyo wax weyn wixii aanu u helo la siiyo.